بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. بارك الله فيكم. وحيالها runtii qofka muuminka ah bisha Ramadaan la gudboon waxa kamid ah inuu dhageysto nasaaixda iyo talooyinka loo soo gudbinayo. nasaaixda iyo talooyinka marka aynu guud ahaan muslimiinta u gudbinayna, gaar ahaan walaaladeenna ardayda ah ama hawlwadanada jaamacadda guud ahaan inuu gudbinayna waxa ay tahay qofku marka uu sooman yahay inuu hor Ilaahay u soomo, niyada hagaajisto uu soomo marka taqarruban ila Allah, Ilaahay isagoo ajr iyo xasanaad kaga doonaya, Ilaahay ajrka inuu u siyaadiyo u badiyo marka doonaya inuu taa sidaas u sameeyo. waa qodobka koowaad ama nasiixadana koowaad ee dadka saayimiinta aynu gudbinayno. nasiixada labaad, walaalka saayimka waxaynu leenahay soomkaaga waxaad ka ilaashataa hadalka xun, hadalka beenta, waxyaalaha Ilaahay subxaanahu wa ta'ala uu xarimay walaw waxaasiyana soomkaaga bajabinina. way nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yiri: man lam yad'a qawla az-zur wal 'amal bih falaysa lillahi haajatan fi an yad'a da'amahu wa sharabahu. waxa nabigu calayhi salaatu wasalaam qofka aan ka tagin hadalka beenta iyo hadalka beenta marka ku amal falkiis falaysa lillahi haaja, Ilaahay subxaanahu wa ta'ala dan kama laha min an yad'a da'amahu wa sharabahu, qofkaas inuu ka tago cuntadiisa iyo waxa uu cabaayo. waxa kaloo nabigu calayhi salaatu wasalaam farabadana qof saa'ima oo soomkiisa gaajo iyo haraad ma kale aan ka faa'iideyn, farabadana qof qaa'ima habeenkii salaatu leyl u kacaaya oo qiyaamkiisa daal ma kale aan ka faa'iideyn baa nabigu calayhi salaatu wasalaam daal iyo markaa soo jeed. marka waxa ay tahay qofka ikhlaas niyo inuu la yimaado, amalkiisa uu hagaajiyo, waa talabaad amalkiisa uu ka ilaaliyo waxyaalaha shawaa'ibta ah ee amalkii markaa dhaawacaya ama xasanaadkiisa cunaaya. waxa kaloo walaalaha saayimiinta inuu dardaarmayno qofku markuu sooman yahay wuxuu ka fogaanayaa muranka, wuxuu ka fogaanayaa jadalka. nabigu wuxuu calayhi salaatu wasalaam: ma dalla qawman ba'da hudan kaanu calayhi illa utul jadal. qoom had iyo jeer intii toosnaayeen ama ay hanuunsanaayeen ka bacdi ma lumaan ilaa muran baa lagu mashaqeeyo oo dad muran badan bay noqdaan. qofku hadduu muran badan yahay oo murankiisu uu bato, murankaasi dhibaatooyin fara badan buu u gaarsiinaya cibaadaadkiisa, xataa salaadiisu salaad bilaa khushuuc ay noqonaysa, cilmigiisu cilmi bilaa dhadhanuu noqonaya, soomkiisu soom dhaawacmo buu noqonaya. marka waxyaalaha lagu murmana bisha Ramadaan qofku waa iska ilaaniyo uu ka fogaanayo. xataa hadduu qofku caayo oo ku afalagaadeeyo waxaad leedahay waan soomanayso. nabigu inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku hadduu qofku la dagaalamo ama uu ku caayo waxaad leedahay marka inni saa'imun, anigu marka qof sooman baan. macnaheedu soomka ii diidaya waxaana samaynayso inaan markaa sameeyo. walaalaha waxaynu ugu nasteexaynaynaa bisha Ramadaan ee barakaysan inaynu iska baloogarayno oo la iska xidho isticmaalka baraha bulshada wixii aan daruuri inoo ahayn ee dan diineed ama dan adduunyo aan inaga xidhnayn. waayo qofku hadduu wax baraha bulshada markaa u dhex qaado, baraha bulshada munkaraadka dhex yaacaya ee isha u daran, ee dhegta u daran, ee damiirka u daran, qofka damiirkiisa dhaawacaya, qofkaasi waxay soomkiisii wuxuu gaadhayaa inuu dhaawac badan uu soo gaadho, maadaama ishaada ay arkayso waxaan sax ahayn walow adigu qasti hawga qastiine, maadaama dhegtaada ay maqlayso waxaan sax ahayn oo Ilaahay aanu ogolayn, maadaama damiirkaaga uu dareemayo wax Ilaahay subxaanahu wa ta'ala u xarimay. in bisha Ramadaan barakaysan baraha bulshada adeegsigiisa dhalinyaradu runtii aad iyo aad ay uga fogaadaan ayaa runtii aad iyo aad u mudan. waxyaalaha nasaaixda walaalaha inuu gudbinayna waxa kamid ah in la ilaaliyo marka aadaabta suxuurta iyo aadaabta waxa weeyaan afurada labadaba la ilaaliyo. mid walba waxay leedahay ahkaamteeda iyo aadaabteeda, insha Allah ta'ala faahfaahsan ba arki doontaan. laakiin waxaynu xusi lahayn laba qodob oo midna iftaarka uu yahay midna suxuurta uu yahay. ka iftaarka ama afuritaanka waxa sunno ah afuritaanka in la dedejiyo, qoraxda marka la hubsado inay dhacday la hubsado inuu qofku iska afuro. way nabiga wuxuu calayhi salaatu wasalaam: idha aqbala al-laylu min haahuna wa adbarat an-naharu min haahuna wa gharabat ash-shamsu faqad aftara as-saa'im. baa nabigu calayhi salaatu wasalaam haddii habeenku xagga ka yimaado bari, maalintuna xagga galbeed ay u kacdo, qoraxduna ay dhacdo, ninkii soomana wuu afuray, bimacnaa ha afuray nabigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam. marka afurida markaynu hubsano qoraxdu inay dhacday aynu hubsano waxay qofku waa afuraya. sida oo kale suxuurtana waxa sunno ah, suxuurta baraka badan baa ku jirta. nabiga wuxuu tasaxaru fa inna fi suxuuri baraka, marka in dub loo dhigo ayaa markaa sunno ah. walaalaha inahaasaynu ugu nasteexaynaynaa. ilaahayna subxaanahu wa ta'ala waxaynu ka baryaynaa in Ilaahay inaga dhigo dhammaanteen alladina yastamicuuna alqawla fayattabicuuna axsana. baaraka allahu fiikum wasala allahu calaa rasuuli illahi wacala aalihi wasaxbihi wasalam. jazakum allahu